Assalaamu calaykum. Maanta waxaan inii soo gudbinayaa dhacdooyin si live oo dhacay dhalinyaro live ku jira oo dhacdooyin kala duwan la kulmay ayaa maanta inii soo gudbinayaa oo runtii markaan inii sheego aad la yaabi doontaan. Dhacdooyinkan haddaba dhalinyarta ku kala dhacay qaarkood live-ka dhexdoodii bay ku dhex dhimanayaan, sidoo kale qaar kale waxa ku soo boodaya xanuun aad u daran, sidoo kalena qaar waxba la isku dayaya in live-ka ku jira la isku dayo in la dilo ayaaba dhacaysa. marka haddaba dhacdooyinkaasaan maanta inii soo gudbin doonaa ilaa 4 qof inii soo gudbin doonaayo isla socod wanaagsan kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. haddaba wiilkan aan iniigu horeysiinayo, wiilkan wuxuu ciyaaraya game yar oo lagu magacaabo Jelly Game. haddaba wiilkan siduu geemkii u bilow isiri waxaa laga dhameeya indhihiisa iyo madaxiisaba inay wareer yar soo gelayo oo indhihiisana ay cabsiyo kale ay dareemayaan. haddaba ninkii wiilkii waa xanuunka uu kasii daray oo kolle kursigu dib u fadhiistaa, kolle hore uu soo fadhiistaa. markii dambena wuxuu biloobay inuu cirka eego sidii wax malkumuudka arkayo oo kale inuu cirka eego. runtii adiga arkay isagoo mooskii ku dhegsan oo qalalsan oo sidii naftu ka baxday oo kale inuu dhulka ku dhacay. isla markiiba guriga waxaa soo galaysa oo qayladiisii maqlaysay inan guriga joogta ayaa waxay soo galaysaa qolkii, dan way caawinaysaa, wixii caawimaadana halkaasi ka siinaysaa marka inuu dhintay inuu kale. Seizure life. Luckily, lama hayo. haddaba wiilka labaad aan inii wadaa waa wiil vlogger amba wax duuduubayo live ku jiray oo isna markaa meel banaana marayay ayaa waxa uu la kulmayaa wiil amba mid kaloo ka dhacsan oo dee khamri iyo balaayo caboole isna jawi kale ku jira oo meesha uu marayay agjiifa. wiilkii dhinkiiba is odhanaya iskala sheekayso oo wiilkiiba odhanaya alcohol iyo waxyaaba uu caabo maandooriyahaasi waxaa ma haysaa. markaas isku sheegaya uu odhanaya anuu travel baan ahay, document baan diyaarinaya, marka anugu waxaa ma cabo waxyaabahaas ma xiiseeya. haddaba ninka wuxuu isku dayayaa shandadii uu agtaala amba bacda agtaala inuu kala soo baxo muxuu ahaa hub uu ninkan ku ataago. runtii ninkanna uu dareemayaa marka attention buu markiiba qaadanayaa, hore ayuu meesha uga boodaya, wuu kaba cararayaa oo wuxuu odhanayaa wanaga tag balaaya ku ag fadhiisato, markiiba meesha uu iskaga cararayaa. wiilkana saas buu ku badbaaday siliqda leh. But you've been cursing me out the whole time, so I'm good, brother. You don't seem to respect me, you know? Yeah, what happens? so he tries to save haddana dhacdadeena saddexaad haddii aan ku socono waxa weeyaan laba wiil oo asxaab ahaa ayaa waxay sameynayaan live bay is odhanayaan hambilowno. markay live-kiisa u biloobayaan cuntadoodii waxooga iska soo diyaarsaneen ay live-kii ku jiraan ayaa waxaa meeshii soo gelaya nin ayna ugu talagelin oo aan ahayn dee qof kale aduu dee meeshii si degdega sikadiisa ku yimid ayaa ninkii soo weeraraya. ninkii runtii xabad buu dhakada kaga qabanayaa, ninkii deena la nafti macaana, ninkii naftiisu u yaabayaa bismillah war waxaan ku soo galay waa war haydilin war iminkaan ku dilaya waxyaabaha hadalla noocaas isku celcelinayaan ilaa ninkii markii dambe dhulka isla galeen. haddaba ninkii nasiib darro dib buu usoo fadhiistay, kii xabadda ku qabtay uu yimidna uu soo dul yimid, wuxuu ku yidhi waxani waxay ahayd prank. waxaa soomaali wereeriyey prank soomaali sameynayaan prank laysla ogyahay. haddaba waa kan prankii dhabaa. ninkana wallahi runtii naftiisa aad bay halis u gashay oo isaga ilaa uu dee siriba adduunyadu waa dhaafaysaa ayuu siri. wiilkan dhacdadaasa live-ka kaga dhex dhacday isagoo ku jira. haddayna ku wasn't We're gonna have to come back soon. Holy haddii aynu ku soconno wiilkeena ugu dambeeya aba wiilkeena afraad aynu soo qaadanayno. wiilkan haddaba wuxuu isna ciyaaraya game yar oo lagu magacaabo aduu batal game dagaal uu ciyaarayay. geemkiibuu haddaba ugu dambeyntii geemkiibuu badiyey oo wiilkan waa badiyey geemkii. markaa sidii caadi ahayd farxad buu dabaaldegay, uu qoslay oo hal marba haddaba waxaa kusoo booday xanuun aad u daran. wuxuu waxaan dareemayaa laabta ka dareemaya xanuun aad u daran, gacanta ay gariiraysaa. runtii hadalladaasi ku celcelinaya ilaa uu markii dambe uu miyir doorsamay uu meeshii uu fadhiyay kursigii uu fadhiyay ka kacay. haddana 1 minute ka bacdi amba 2 minute ka bacdina markiiba degdeg buu kusoo kacay isagoo leh waan caafimaad qabaa. haddana live-kii buu dib ka biloobay geemkii inuu ciyaaro, haddana dib ka biloobay. haddana wuxuu xanuunkiiba iga sii daray, waxaan sameynayaa biyo ayaan soo cabayaa, waan inii soo noqon doonaa isuga buu yidhi. dan aduu biyihii iyo wuxuu jilibkii inuu isii gariirayaa, sidii buu ku baxay live-kina sidii ayuu ku dhammaaday. inahaas ayaan what happened to him. My chest! Oh, seriously, oh, my chest! His hands started shaking. Oh, oh, oh.
Oh my god, I'm dizzy. I'm literally having a heart attack. ayaan maanta doonaya inaan inii soo gudbo dhacdooyinka live-ka ka dhacaya. runtii waa dhacdooyin aan doonay inaan ka cibro qaadano oo ilaahaynu dee inaga muslimiin maadaameynu nahay oo mar walba aynu asiibno sujuudda markaynu ku sujuudsanahay aan asiibno inaynu nidhaahno allahuma innii as'aluka xusna alkhaatima. waayo adigoo maanta wanaag badan soo sameynaya iyo acmaal fiican soo sameynayay baa laga yaabaa in maalmihii ugu dambeeyey ee adduunyada kaaga hadhay in meelo aan munaasib ahayn aad aadid oo halka malakumoodka kuuga yimaad waa waxyaabahan ilaahay ka magangali inaan ka magangalna ay tahay dhalinyarteen aan ku baraarugsanayn inay ku baraarugsanaadeen hal arrin baan isleeyahay waad kaga badbaadi karaysaan xusna la-aan amba khaatimo xumo waad kaga badbaadi karaysaan. iminkoo kale tusaale haddii aad samaysid 5 salaadood haddii aad ilaalisid oo siduu ilaahay kuu faray aad u ilaalisid runtii dee waxaa u badantay inaad ku dhimatid khaatimo wanaagsan. tusaale iminka salaada casar baad tukatay markiiba markaas salaada casar uga soo baxday niyadaada waxaa ku qabatay in salaada maghrib aad tukan doontid. waxaad ka soo baxday salaadii maghribna niyadaad ku haysaa malakumoodkii baa kuu yimid. maxaad asiibtay in adoo acmaal ka soo baxay acmaal kalena sugayo in aad dhimatid. maxaad ku dhimatay xusnul khaatima khaatimo wanaagsan. waa the powerful wallahi haddii salaada la ilaaliyo xataa khaatimadaada wanaagsananaysa wixii acmaashaada dhan ba wanaagsananaysa. marka insha Allah inaan salaada ilaalino si aynu u helo khaatimo wanaagsan. inahaas ayaan doon lahaa inaan maanta barnaamijkeena kaga sii baxo waxaan